soo dhawaada saaxiibayaal waa wiilkina Sirta Films filmkeena maanta wuxuu ku bilowmayaa wiil lagu magacaabo Will Santos maanta waa maalintoodii fasaxa ee ciidda Christmaska sida darteed ayaan la fasaxay iskuulkooda laakiin wiil ma ahayn mid xiiso u qaba inuu qoyskiisa faraha badan waqti la qaato isla markii uu iskuulka soo baxayna indhihiisu waxay qabteen gabadh aad u qurux badan oo xidhan maro cas isla aragtidii koobaadna wiil jacayl ayuu u qaaday si kastaba ha ahaatee wiil uu cararay oo baska ayuu foolay nasiib wanaagna gabadhii iyaduna baska ayay kasoo daba gashay baska dhexdiisa walaalaha wiil ayaa ku jeesjeesay dibacadiisa xishoodka sababtoo ah wiil wuxuu ahaa wiil iska aamusan oo gooni socda wax saaxiibana ma lahayn walaashii ka yar geewin ayaa ku tiri inta aysan baska ka digin la hadal gabadha nasiib darro gabadhii baska ayay ka degtay islaystaankii labaadba laakiin waxay baska gudihiisa ku ilowday maradeedii wiil ayaa maradii qaatay laakiin ka hor inta uusan u celin baskii ayaa dhaqaaqay wiil iyo walaalihii markii ay guriga u socdeen waxaa si lama filaana baabuur ugu soo horgooyay nin lagu magacaabo Leon wuxuu shaqaynayay haweeneyda magaalada ugu taajirsan Mrs Grayton Leon wuxuu wiil iyo qoyskiisa ku casumay xaflad Christmas taasoo ka dhacaysay qasriga boqortooyada ugu dambeyntii markii wiil uu gaadhay gurigooda wuxuu arkay walaalkiis ka weyn Max oo isna fasaxa u yimid Max wuxuu soo degay qolka wiil taasoo wiil ku khasabtay inuu seexdo qolka stoorka isku dar wiil wuxuu lahaa 5 walaalo oo ka waaweyn iyo hal gabadh oo ka yar aabihiis John wuxuu u muuqday nin xoogaa haweenka jecel John wuxuu magaaladan ka helay shaqo macallin jaamacadeed sidaas ayayna halkan u soo degeen hooyadiis waxay iska ahayd guri joogto taasoo aad u jecel qoyskeeda habeenkii markii cashada loo fadhiistay John wuxuu wiilkiisa Max weydiiyey halka uu aadayo qalinjibinta kadib Max wuxuu yiri wali waan ka fikirayaa arrinkaas intaas kadib miiska cashada dushiisa wiilasha oo dhan waxay ku maadeysanayeen wiil sababtoo ah wuxuu awood waayay inuu la hadlo gabadhii baska maalintii xigtay laba nin oo beeralaya Dawson iyo Georgie ayaa qoyska u keenay geedka Christmaska labadooduna aad ay ugu farxeen markii ay wiil arkeen waxayna ugu hambalyeeyeen dhalashadiisa kadib waxay sheegeen in caawa duufaan imaan doonto inkastoo cirka furnaa intaa kadib qoyska wiil ayaa siiyay hadiyado badan hadiyadaha dadka kale waxay iska haayeen hadiyado iska caadi ah laakiin wiil wuxuu aad u daneynayay hadiyada Gewin sababtoo ah iyada kaliya ayaa u keentay hadiyada ay ka soo fikirtay wiil markuu hadiyada furay waxaa ku jirtay saacad aad u qurux badan Gewin ayaana gacanta ugu xidhay waxayna ka codsatay inuu niyeysto hal rabitaan wiil wuxuu jeclaystay in halkan baraf ka da'o habeenkii markii wiil soo tusay wuxuu arkay baraf da'aya aad ayuuna u farxay laakiin qabowga dartiis markii uu isku dayay inuu daaqada xidho si lama filaana gacmihiisa waxaa galay awood saa'ida inkastoo tartiib u taabtayna daaqadii ayaa burburtay maalintii xigtay wiil oo taagan istaanka baska wuxuu arkay tukayaal badan oo geed ku soo degay baskii ayaa yimid wuxuuna aaday suuqa si uu Gewin hadiyad ugu soo iibiyo wuxuu helay silsilad qurux badan wuuna u soo iibiyey markuu suuqa ka soo baxayay laba booliis ayaa qabtay waxayna ku eedeeyeen inuu silsilada soo xaday waxayna geeyeen qolka dadka su'aalaha lagu weydiiyo markii ay qolka galeen wiil wuxuu dareemay inay wax khaldan yihiin nalalka ayaa damdamayay booliiskuna wajiyadooda ayaa isbedbedelayay saraakiishu waxay weydiiyeen macluumaad ku saabsan calaamadda laakiin wiil ma garanayn waxa ay ka hadlayaan si lama filaana booliisku waxay isku bedeleen qaabkoodii dhabta ahaa waxayna isku dayeen inay wiil weeraraan wiil si fudud ayuu riixay awooddiisa cusub darteed isagoona ka baxsaday markaas ayaana ahayd markii ugu horreysay uu dareemo awooddiisa labadii nin way caarsadeen balse uu ka badbaaday wiil weli uu jaha wareersanaa wuxuuna isku dayay inuu aabihii u sheegay waxa ku dhacay laakiin aabihii iyo qoyskiisu midna dheg jalaq uma siin fiidkii wiil iyo qoyskiisu waxay aadeen xafladii qasriga labadii beeraley Dawson iyo Georgie ayaa wiil weydiiyey inuu caweynayo in kale isla markaas wiil wuxuu arkay gabadhii baska Maggie laakiin James ayaa soo dhex galay oo la hadlay gabadha wiil aad ayuu uga cadhooday midaas jaakadiisana uu qaatay uuna baxay dhanka kale Leon iyo Miss Grayton waxay ka tishanayeen in wiil loo sheegay qadarkiisa wiil oo keynta dhex socda waxaa soo eryaday nin faras fushan iyo eeyo wiil wuu cararay laakiin ninkii faraska watay uu ka dheereeyey wuuna joojiyey ninkii fardooleyda ahaa wiil wuxuu weydiiyey calaamadda wiil wuu garan waayey isla markaas Leon iyo Miss Grayton ayaa yimid waxayna ku amreen ninkii fardooleyda ahaa inuu wiil faraha ka qaado ninkii wuu baxay laakiin wuxuu ku hanjabay in maalmeer kadib awooddiisa ay u soo noqon doonto markay ii soo laabatana cid aysan noolaan doonin Leon iyo asxaabtiisa waxay arkeen wiil oo naxsan waxay u isticmaaleen sixir si ay dib waqti hore ugu celiyaan waxay geeyeen Great Hall waxayna u sheegeen inuu yahay gees qadiimi ah oo badbaadinaya iftiinka adduunka boqolaal sano ka hor dagaal ayaa dhex maray iftiinka iyo mugdiga iftiinka ayaa guuleystay balse mugdiga muusan dhiman si mugdiga loo soo afjaro wiil waa inuu soo helaa 6 calaamadood waxay u sheegeen in dhalashadiisa awooddiisa ay soo kicisay Ryderkuna uu dareemay awooddaas Leon wuxuu u sheegay in wiil uu yahay wiilka toddobaad ee uu dhalay Radia Seeker waxay heleen buug qadiimi ah oo la yiraahdo Book of Grammar kaasoo wiil oo kaliya uu akhrin karo markuu taas maqlay wiil wuu qoslay wuxuuna yiri waan ka xumahay waxaan leeyahay 5 walaala aniguna waxaan ahay kii lixaad qof qaldan baa doorateen markuu isku dayay inuu baxo Leon ayaa u sheegay inuusan qadarkiisa ka carari karin isla markaas wiil waxaa la tusay mustaqbalka oo mugdi qabsaday adduunka uu naxay si lama filaanana wuxuu arkay inuu wada gaari u dhow yahay ku jiro si dirqiya ayuu guriga ku tagay
bartay wuxuuna sameeyay cilmi baadhis wuxuuna aabihiis oo professor physics weydiiyey iftiinku mugdiga ma jabin karaa aabihiina wuxuu yiri maxaad waxaas ugu fakaraysaa iska baashaal da'daadii baashaalka baad ku jirtay intaa kadib wiil wuxuu galay qolka stoorka markuu khaanad furayna uu siibtay lugta ayuuna ka jabay hooyadiis Maari ayaa dhakhtar u yeedhay wiil wuxuu maqlay codka dhakhtarka wuxuuna gartay inuu yahay ninkii fardooleyda ahaa dhakhtarkii wuxuu Maari hooyadii u diray qol kale wuxuuna taabtay lugta wiil wuuna bogsiiyey wuxuuna ku yiri haddii aad siiso calaamadaha wax kasta waad helaysaa kadib wuxuu wiil ku ciqaabay xanuun sixira isagoo ugu hanjabay inuu qoyskiisa dili doono haddii uu ku biiro ciidamada qadiimiga markii hooyadii soo noqotay dhakhtarkii wuu iska tegey wiilna wuxuu qolka ka helay sawir ay ku jiraan laba carruur oo mataana ah hooyadiis ayuu weydiiyey waxayna u sheegtay sirta wiil wuxuu lahaa walaal mataana oo la oran jiray Tom markii ay 2 toddobaad jireen dufaan ayaa dhacday hooyadiis Maari waxay qaaday wiil aabihii John wuxuu u laabtay inuu Tom soo qaado laakiin Tom qolka lagama helin waana la la'yahay ilaa maanta dhacdadaas darteed John wuxuu joojiyay qoraalkiisa jaamacadda wuxuuna galay niyad jab wiil wuxuu hadda fahmay sababta uu yahay wiilka toddobaad Tom ayaa ahaa wiilka lixaad wiil wuxuu gartay inuu dhakhtar weyn jiro wuxuuna go'aansaday inuu ku biiro dagaalyahanada wiil markuu buuga qadiimiga akhriyay wuxuu ogaaday inuu leeyahay awoodo badan inuu calaamadaha fasiir karo iyo inuu walxaha ku hareeraysan maskaxdiisa ku dhaqaajin karo inuu waqtiga dhex maro iyo inuu dab dhaliyo laakiin uu ka yara xumaaday markuu ogaaday inuusan duuli karin sida Superman Leon ayaa wiil tababaray wiil wuxuu arkay in calaamadda koowaad ay ku jirtay silsiladii uu geey u gaday si uu calaamadda labaad u helo waxay dib u noqdeen waqti hore halkaas habar duq ayaa masas ku soo weerartay wiil uu ka takhalusay wuxuuna helay calaamadii labaad kadibna kaniisadda ayay ku soo laabteen waxay ka hadleen calaamadii lixaad taasoo weligeed la qarin balse aan la garanayn meel ay jirto habeenkaas fardooleygu wuxuu la kulmay nin dahsoon wuxuuna u ballan qaaday abaalmarin haddii uu calaamadaha u keeno guriga James ayaa cashada yimid isagoo wada Maagi wiil aad buu u niyad jabay markuu ogaaday inay wada socdaan cashada kadib Maagi waxay wiil u samaysay sixir yar cusba ayay qaab u samaysay wiilna awoodiisa ayuu tusay wiil wuxuu weydiiyey maxaa James uu la socotaa ma adiguna dagaalyahan baa tahay Maagi waxay ku tiri maya waxaanu imid ilaalintaada wiil wuxuu u sheegay inuu jecel yahay laakiin James ayaa soo dhex galay Maagi guriga way ka tagtay wiil wuxuu u orday Leon isagoo leh anigu gabdhaha xitaa lama hadli karo sidee adduunka u badbaadin karaa Leon wuxuu ku yiri gabdhaha waad heli doontaa laakiin waa inaad hawsha hadda xoogga saartaa wiil uu qeyliyey geedaha u dhow ayaana dab qabsaday Mrs Grayton ayaa Leon canaanatay Kevin ayaa wiil soo daba gashay wiil wuxuu cirka ku arkay darro tilmaamaya calaamadda saddexaad Kevin ayuu gacanta qabtay waxayna aadeen waqti hore waxayna ku soo beegmeen goob dagaal wiil wuxuu arkay gaashaan ay ku dhagan tahay calaamaddu nin weyn oo dagaalyahan ayaa wiil qabtay kaasoo ku tuuray biyaha ninkii wuxuu arkay saacaddii wiil tii ay geewansiisay wiil saacaddii ayuu ku bedeshay gaashaankii sidaas ayuuna ka helay calaamadii saddexaad intaas kadib waxaan ku xasuusinayaa inaad like saarto muuqaalka oo hilmaamto inaad like saarto channelkana subscribe tiraahdo oo nagu soo biirto haddii aad nagu cusub tahay waxay noo tahay dhiirigelin intaas kadib wiil markuu guriga ku soo laabtay Leon ayaa canaantay sababtoo ah Kevin ayuu khatar geliyey guriga dhexdiisa Max ayaa wiil soo qoor qabtay Max waxaa galay ruuxdii fardooleyga wuxuu wiil u kaxeeyay meel baraf ah wuxuuna isku dayay inuu dilo wiilna wuxuu isku dayay inuu Max la hadlo laakiin markii ay shaqeyn weyday Fer ayuu ku dhuftay oo uu suuxiyay kadibna uu soo celiyay subaxdii magaalada waxaa qariyay baraf xoogan korontada iyo biyaha ayaa go'ay qoyska wiilna waxaa loo raray qasriga Mrs Grayton waxaana la ogaadaa in Maagi ay tahay sixirad u shaqeysa fardooleyga si ay weligeed u hesho dhalinyarnimo fardooleyga ayaa ku amray inay calaamadaha ka soo xaddo wiil wuxuu helay calaamadii shanaad Maagi ayaana ka dalbatay inuu siiyo calaamadaha wiil uu diiday maadaama ay fashilantayna fardooleygu uu ka baxay heshiiskii Maagi isla markiiba way duqowday webi ayayna ku dhacday oo way dhimatay wiil wuxuu tagay Great Hall fardooleygu ma soo gali karo fasax la'aan fardooleygu wuxuu isku yeelay codadkii aabihii John hooyadii Mary iyo Kevin oo qaylinaya wiil uu naxay albaabka ayuuna furay fardooleygu ayaa soo galay wuxuuna qariyay iftiinkii asxaabtiina uu ka adkaaday fardooleygu wuxuu wiil tusay kubad sixir ah oo ku jira Tom walaalkiis ka weyn fardooleygu wuxuu qirtay inuu Tom afdubtay 14 sano ka hor isagoo u malaynaya inuu isaga yahay kubaddii ayuuna biyaha ku tuuray wiilna darar madow ayuu ku dhex tuuray isagoo dararta madow ku dhex jira wiil wuxuu gartay xaqiiqda calaamadii lixaad ma aha shay ee waa isaga laftiisa awoodiisa oo dhan ayaa kacday daruurtii oo dhanna uu qarxiyey wuxuuna ku dhex xidhay fardooleyga iyo madowgiisa magaalada iftiin ayaa ku soo laabtay Tomna wuu xoroobay wuxuuna la midoobay walaalkiis wiil labada walaal guriga ayay aadeen qoyska oo dhan ayaa farxad la ilmeeyay markii ay arkeen Tom oo soo laabtay Tom hadda waa geesi badbaadiya adduunka oo dhan filimkeena maantana halkaas ayuu ku eegyahay fadlan haddii aad halkan nala soo gaadhay
waxaan kaa codsanayaa inaad like saarto muuqaalka channelkan aad subscribe tiraahdo oo nagu soo biirto halkan waxaan ku soo gudbinaa filmo aad u xiiso badan oo ka cajabin doona waxaan kaa codsanayaa inaad qaybta faalada nagula wadaagto aragtidaada haddii aad filimka magaciisa u baahan tahayna hoos yaan idiin soo dhigay